هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هدف كاسدتك مسلم كوقفك مركو مسلم نقضه ويول أما قول الراد عينيه لكن نرشو أهداف يريرك سكا يسيلاده وحال الربا أهداف يرير سكا إن أخد ميسو هدف كوين يعني وحكستو هدف كوين كوي عينيه وإنو النقضة وحان معنا بدنك تادك الصمينين مثلا إن الحوك ستو وشغيستي وهانتي يالتي ومباح ووح بنان نرشنا ولا قربه لكن هدي هدفك كوي دارين ايان كورر إلهي كو قرآنك كو أماني وحلي محي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كوحبا إلهي أماني كوحدا الأماني وحلقوا المامي رغنمو الرجال ويان باليدي والرجال محي كسفوبة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله باع مشتركة إيا لعقت كسب الشديد كما ويعيسه ما إلا وسيسه هدفكي وينه إنو صلاة أوغو إنو زكاة الله يماده إنو إلهي عابده إنو حصه إن آخره هرتي سايتا الله يخافون ربهم إن ربي قد كعب صريان مالن قلوبتا يقدوم يسو إذن هدفك ويني waxaan soko oo dhami dabab kuma ridaan ceeriyaan ma ha ka qarin karta mushkilada dadka haysata ugu badan waxa weeyaan ilaahay wuxuu ina leeyahay hada salaada dhamaysan maxaa la yiri fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah salaada marka dhamaysataan dhulka ku faafo ilaahay arsaaqdiisa raadsada la yiri wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun لكن الكفاف هي التجارة دي وحنا هدي هدف كوين قلضيان إيجا لجو هرتجية ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وحبذا مركا مانت أهداف تواوين تيدتكو إلا بان وحي يرى كينكو مشغولة حلقيا بان انت الساعدات كوب حسي سكول كيات ساقده وكورن يوم القيامة هدات ساقده ما انت ان ساقد نمك وين يشرين هل غياب إنه لا يهياد عيبوبين وكورن قيامة مركا غير نبي آدم ودر لا سكينة هداد عيبوده يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية غير نبي آدم إلا كودن بيقوب يتاقيهين هداد عيبوده وهل غياب إنه تسلاده إنه لشوى كوا أدك تفضوده وكورن مال انت كنتم كن أوصر نضوضة نلش إنه تشوقنور دموامسة 6 سنة 7 سنة 6 سنة كورن مالين كنتم كونوا سندودا هداد عذابنتو انت انجنية نار بليس لقاري كان 50,000 سنة مالنا قيامه ومالين كنتم كونوا سندودا كنتم كونوا سندود بتاقنانيسة كنتم كونوا سندود بدد كان لحسابية كنتم كونوا سندود بعد عدو هل كنت اقنتهي كنتم كونوا سندود بعد واحد هرسانيسا واحد حوكستي ee hadafkaasi aad u xoogsatay konton kun oo sanadood baad dhididaysaa oo dhididkaagu wuxuu gaadhayaa halka waa dunuubtaadu joogtay konton kun oo sanadood baa ragga qaar hadhsanayaan oo carshu raxmaanka hadhsanayaan ay ka mid ahaayeen dhallinyaradii ku kobocday maxay ilaahay cibaadadiisa madaxdii cadaaladda samaysay kuwii habeenkii istaagay ee ishooda ay ooyeysay kuwii gacantooda midig waxay bixinaysaa gacantooda bidixaanay ogeyn kuwii shahwaatu nafsiga ka soomay ee naaga quruxda badan leh inta u yeedheen ku yiraahdeen ilaahay baan ka cabsanayaa ama inantii inanka quruxda badan leh u yeedhaa tidhi waar ilaahay baan ka baqayaa ayay dhaaf kuwaasi waxa la yidhi iyagu carshu raxmaan bay hadhsanayaan cadaabkanaad ku jirta iyo waxa kana arki maayaan ka waran haddaad sileeday nolosha waxaad u baahantahay way kugu adkaatay biyo lacabo iyo sharaab iyo waxoogaa dabdabacsani inaad u samayso كورن كنتم كونوا سندود هدي هرات كو كاسيو ينك حوض كالنبي محمد كعبيان هراضي نبا يعني هدف كويني هدول لمو نلاشن سكا قيمة ماله شياطين الإنس والجن نوحي سقط تجين إني هدف كوين قريان
way kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryar oo soke waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryar oo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiya heblaaya kolayga ku riday kubad oo hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya ninbaa kubad 2 birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto idan ahdaaftii rasmiga ahayd dowladan waxa la idinku qabanayaa baan rajaynayaa in ahdaafta la saxo inaynu dib u xisaabtanno oo dib nolosha u hagaajinno inaynu buusalada hagaajisanno garanno barul amaan xagee lagu gaadhaa doon baynu saaranay noloshu waa doon badweyn ku dhex jirta hadday buusaladaadu sax tahay markabka badweynka soconaya haddii buusaladu kambasku hadduu u saxan yahay mahma ay waxaana dhacaan wuu gaadhi meel barriyo nabada uu dego wuu gaadhi haddiise kambasku kaa lumo mawjaduhunbaa kolba dhan kuu kaxayn badweyntunbaad ku wareegi doontaa adoo aan weligaana dhul arkaynin waxaa la mid ah qofka noloshan garan waaya wuxuu jooga ka qabanayo haddaad cab oo cayaar oo boodbood oo wax dhal oo xoogso oo daaradhis oo kan samee dan hargeysaa joogtaan bal suuqa hargeysa isdhex taaga raggii dhisay meeye waa daartii xaaji hebel iyo watii ilmo hebel uma maqlaysaan meeye xaajiyadii ka tageen aarahan hargeysada aan maanta dhex joogtaan raggii lahaa cidi kama noola xaggay joogaan waa kuwaynu meelahan ku marro xataa magac male hadda xabaalaha ka bannaayban asxaabulqubuurkii xaajiyanimadii iyo magacnimadii iyo maamuuskii iyo hebel wixii lumiye waa asxaabilqubuur waa dadkaa godadkaa ku jira ciidaynu ag marayno ma waxaad diyaar u tahay inaad danda intaad dhisto ku biirtid kuwa magaclaawe halkaa ku jira aan la kala garanaynin xufradan ay ku jiraan dabcan qaar bay janno u tahay qaarna naar bay u tahay laakiin inaga agteenna waa asxaabulqubuurun waxay isweydiinta le markaa war maxaynu u noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xagga ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waa tegaysaaye waxaasoo dhammi waa maalmo waxaasoo dhammi kam labistum cadada siniin baa lagu weydiin doonaa labitnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed markaad kaleba garan weydaad waxaad leedahay fas'al ilcaadiin kuwii tirin jiray bal ha la weydiiyo adigu inay maalin tahay iyo inay maalin badhkeed taad kala saari kari la'day ee bal cid labadaa kuu kala rajaxda ha la weydiiya baa taagan tahay oo nolosha ma maalin badhkeed baad dooratay marka ayuha alikhwa hadafka aynu raadacaynayno adigaa lagaaga baahan yahay hadafkaa wixii lagu gaadhi lahaa cilmiya ragannimo ah xoogsiya dadaala adigaa lagaa rabaa inaad la timaado adiga jid baa lagugu talagalay guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel soke adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdo adoo rabbigaa caabudaya adigoo ariiqa saxa ah haya waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo ariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro kuwii islaamnimada ku dhintayna laynaga yeelo subxaana wa tacaala